rag hubaysan oo aan heybtooda la garanaya waxaa xaafad ka mid ah degmada howlwadaag ee gobolka banaadir waxa ay ku dileen nin nabadoon ah oo caan ka ahaa degmadaas. dilkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda cali shire oo ka tirsan degmada howlwadaag ee gobolka banaadir, waxaana nabadoonka la dilay lagu magacaabi jiray xuseen geedi jimcaale. qof ka mid ah dadka ku nool xaafadda cali shire ayaa dalsan waxa uu xaqiijiyey nabadoonka markaasi lagu dilay albaabka hore ee gurigiisa oo ku yaala xaafadda cali shire, iyada oo raggii watay baastooladaha ee dilka geystanayay goobta ay ka baxsadeen. ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in ay gaareen goobta dilku uu ka dhacay iyaga oo sameeyay baaritaan kooban kadib markii meydka nabadoonkaas laga qaaday goobta. magaalada Muqdisho ayaa maalmahan inta lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa ka dhacay dilal qorsheysan oo badankood loo geystay askar iyo dad shacab ah, waxaana tirada bishan Ramadaan dadka la dilay ay ka badan yihiin in ka badan 50 qof oo lagu kala dilay degmooyinka gobolka Banaadir.